Somali Kids TV. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku ictikaafi jiray 10 habeen ee ugu dambeeya bisha Ramadaan masaajidka. ujeedaduna waxay tahay qofka inuu u firaaqa noqdo cibaadada oo la kali noqdo Allah subhanahu wa ta'ala si uu ilaahay u baryo daacada ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo cibaadada ilaahay ugu dadaalo. hadday noqon lahayd in quraan la akhriyo, hadday noqon lahayd in istighfaarta la badsado, in ilaahay la baryo ducada la badsado. wuxuu ka bilaabanayaa ictikaafka habeenka oo Ramadaan yahay 21 sida jumhuurta ahlu cilmiga ay qabaan. wuxuuna ku eg yahay ictikaafka habeenka ugu dambeeya ee bisha Ramadaanka ayuu ku eg yahay gabalka markuu dhaco oo ciidda soo galayso. acmaasha la qaban karo ama amalada la qaban karo marka qofka uu ictikaafka ku jiro waxaa ka mid ah inuu cibaadaadka gaarka ama khaaska u badsado isaga iyo rabbigiisa ka dhaxeeya, sida qofka inuu quraanka akhriyo, inuu sunnooyinka tukado, inuu ilaahay baryo ducada badsado iyo wixii la mid ah. Somali Kids TV.